Bismillahirrahmanirrahim. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaasha ku xiran channelka Aqil Official. Maanta waxaan idin sidaa qiso cajiib ah ka hor intaan gudagalin barnaamijka. Waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe saartaan si ay dhiirigelin inagu noqoto. Qisadani ayaa waxay dhexmartay nin Muslim oo dalka Suudaan u dhashay iyo haweeney caddaan ah kuwaas oo daris ku ahaa gudaha dalka Mareykanka. Ninka Muslimka ayaa mar waliba waxaa cayn jirtay haweeneydii caddaankeed iyadoo ku dhahaysay uma qalintid inaad ku noolaato dalkan. Ninkii ayaan ahaa mid aanan u jawaabin isla markaana ka socda. Maalin maalmaha ka mid ah ninkii Muslimka ah ee dalka Suudaan u dhashay ayaa wuxuu arkay haweeneydii oo qolo tuuga dilaysa isagoo ka soo rabaxay shaqadiisa isla markiiba uu u soo cararay wuxuuna u qaaday isbitaal. Muddo kadib markii ay soo naaxday haweeneyda ayaa waxay ku bilowday ninkii inay caydo isagoo fiiriyay isla markaana ku qoslay. Nin dhakhtar ah oo meesha ku sugnaa ayaa ku yiri ninkan hadduusan ahaan lahayn noloshaada maanta halkan maysan joogteen. Kadib waxaa timaaday bishii barakeysneed ee Ramadaan. Haweeneydii ayaa haween ka mid ah soo gashay gurigii ninkii Muslimka ah ee dalka Suudaan u dhashay iyadoo qiraysa tawxiidka. Haweeneydii ayaa halkaasi ku soo islaantay muddo kadibna waa ay geeriyootay. Wixii hanti ah iyo guri ay lahayd waxa ay ku qortay ninka Muslimka ah ee u dhashay dalka Suudaan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa qisadeeni maanta. Inta mideeda xiga aynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadiino nooli kulanti dambe oo xiiso leh.